tahay bishii 9 bishii 6 2020 waxa ka hadli doonaa laba qodob oo yar oo isbarkan waxaan la wada soconay labadii cisho u dambeeyay iska soo daba dhacayeen xariga loo geysanayo saxaafadda madaxa bannaan labadii TV ee Universal iyo Star TV waxaan nasiib darro inagoo maanta marayna 2020kii xoriyada qowlka caalamku halkii marasaan garanayno iyo fasaxa ay haysato in maanta cagajuglan iyo caburis aad u culus ka dhex jiro Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan nasiib darro in iyadoo oo aan wax waarana iyo wax sharciyada loo adeegsanin TV-da madaxa bannaana ee dastuurku damaanad qaaday fasaxooda xoriyada qowlka sifa sharci darro lagu wareegay oo xukuumaddu kula wareegtay tii ruqsadeena war kala noqonay عيب ويا فورم ويان runtii iyadoo heli kara inay sifo sharciyo soo maraan oo ay waara soo goostaan oo ay sida ku xidhaan ama ay wax ka weydiiyaan in ayagu gacmahooda ula tagaan sharciga runtii burburiyaan aad bana sii daro tahay waxa fooxmo iyaduna oo maanta deynadul hoganaysa in la leeyahay cidii hadasha cidii warka aan si baahinin ka farxinaysa ee gulwadaynta in la xirayo runtii waxa nasiib darro in la isku haysto maxaa warkay khasab ugu baahan weeyay seen loo wada socono saxaafaddu way madax bannaan tahay xorna weeyaan dastuurkaana damaanad qaadaya xoriyadooda waxa weeyaan waa business waana ganacsi in la yiraahdo maxaa warkayga u baahan weeyay cib bay maanta qaranka ku tahay saxaafaddu waxay u baahaysaa warka ka iibsamaya ama warba warku ka nuxurka badan yahay ayay baahaysaa saxaafaddu haddii ay doonayaan saxaafaddu inay baahayso warkooda macnaha u sameeyaan warkuna ha noqdo war ummadda masiirkeeda iyo horumarkeeda iyo iskaashigeeda iyo waxa wada qabsigeeda ka hadlaya oo caafimaadkooda iyo waxbarashadooda iyo ka hadlaya horumarintooda iyo jidadkooda laakiin war aan inta midna ka hadlaynin ummadda Soomaaliland xataa kuwa dhageysanayaan macnaba u sameeyeenba waxaan u baahnay war hal dhageystay war wanaagsan ummadda u sheega hal dhageysto TV ha baahiyaane war wanaagsan ummadda ha loo sheego waxay noo soo socotaa oo aan maanta ka dhageysan oo loo sugayaa sidii tiibariga hore jirtay ku qosla kabtan ku faydiyo kale bay maanta tan ka dhigan tahay taana waxaan leenahay waa furxumo dalkana horu taa ugu soo burburay maanta ayaan dib loogu celin xukuumadda kulmiye ee kala dambaysa waxa ay caadeysatay xariga iyo cagajugleynta saxaafadda iyo dadka xoriyada qowlka riyigooda cabiraya ay caadeysatay warkada ay balan waxa soo dalka hore Soomaaliya loo joogo burburay waxaan u baahanahay dib u habayn iyo dib u jabis qulubta bilaadanka qofka in xoriyadiisa ilaaliyo sharafkiisa ciddiisa la dhowro dastuur baan taa u sameeysanay qofkana waxa uu magan u yahay oo hoos jooga dastuurkiisuna waa badbaadiyaa kana badbaadiyaa qof kasta oo jeclaysi wuxuu weeriyanayaa aad iyo aad baan arkaa oo cambaarayna labada TV la xiray waana ka xunnahay waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inay u soo celiso xoriyadoodii saxaafadnimo shaqadoodina dib ay bilaabaan taas waa taa waxa yada xalay soo baxday oo yada furmo weeyna inay yar oo ciyaala oo riyigiisa cabiray oo gabay sii daayay in saqdi dhexe xal loo daatay oo la soo xiray ina ka yarweyn yar ciyaala waxa madaxweyne haddii ay ku damqasay ina ka yar ciyaalka eriyada uu leeyahay oo xabsi lagu galayo aad bay nasiib darro ugu tahay waa la hadlayaa rayga waa la cabirayaa wax waa lagu sheegayaa wixii qaldan waa laga hadlayaa hadal ray qoraal qowl inta waa lagu hadlayaa haddii aanad u adkeysan kareynin feedback kaaga soo noqonay bulshada ku doortay dhex joogto aad bay nasiib darro ugu tahay dadka taa shaqo ka dhiganay wax leenahay war madaxweynaha waa la hadlayaa waa shacabkiisa dadkan la hadlayaa gabay bay ku cabirayaan qoraal way ku cabirayaan yaanay idinka dhibiraad shaqo kale inta samaysataan wax macna loo madaxweynaha u dhaamo waxan u sheega kala taliya waxa u baahan in fursado badan laga hadlo leeyahay madaxweynuhu madina doortay dadkii way dayacay wadooyinka way dayacay caafimaadku way dayacay waxbarashadu way dayacantay biyihii way dayacay taas ha u baahan madaxweynaha lagu dhiiri geliyo oo looga sheekeeyo lagu celceliyo si uu ummadii hoos ugu eego
laakiin uma baahna madaxweyne looga sheekayo hebel baa facebooka ka caayay hebel baa qoraal ka sameeyay hebel baa ku soo gabiyay taas waa tusiyaad barku burburay mana aqbalayno mana yeelayno in caruurta yar guryahooda saqad dhaxal loogu daato waanan ka xunnahay waxaan leenahay waa ha lagu soo noqdo sharciga ha la wada dhowro sharcigana Soomaaliland ku kala soconaysaa sharci darro ku kala socon mayso aad iyo aad baan uga xunnahay yarka yar la xiray waxa yadana si darasi noqotay inta xalay saqad dhaxal soo xiray maanta la iska sii daayay dadku goormay xoolo noqdeen xurmadii ka baabaday war qofka bilaadanka karaam u leeyahay waa la xiri karaa qofka sifo sharciya lagu xiri karaa sifo sharciya maxkamad lagu geey karaa maxkamadaana sii deyn kartaa xalay saqad dhaxal soo qaaday saldhig baa la iska geystay maanta waxa waan ku qaldanay raal hawo la sii daayay dadku mas'uul xoolaha inta kale la soo saarto kale la sii deynaya waa fuuxmo weyn iyaduna cadaalad hoos taala taan hoos la eego baan leenahay waan ku xunnahay aad iyo aad waxaan madaxweynaha ugu baaqaynaa inuu sharciga oo ku maamulo dalkan oo ku yimiday kursiga madaxweynimada inuu ilaaliyo xukuumadda kulmiye inay ilaaliso sharciga waa dastuuri weeyaan kula shaqeeyana shacabkiisana ku doorto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.